السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الصومالية ميل باجوكتان وسود علاء شالت مرة كجري توري سبيس كوان ومد الصومالية ذا أغلب بدل لا لا إلى يرو بدل هدوك وعوج على لا يرد الصومالية دينا نروح في عنو انفورميشن في عنو كسابسن نظام كامدول نمد عربنا وشيء مركا ورئيسي برنامج كذا وفينا مرة واحد عادي عن إيري الصومالي وين لو كلاب كذا أم عدة كاتو ذن مركا السيستم كهلا في يران لها soo dadkeenu waa dareemi kartaa 21 sano oo militariga ahaa cabsi xogaa ka qaban dawlad adag laakiin maxaa la isku raacsan yahay cid walba Soomaalida inay yihiin dad system haday arkaan u hoggaansan hadda wadankan aan joogno qurbaan nin walba dambi iska ilaaliya hadii sharci la dhawaan raacna nidaamku waa u hoggaansanahay leenka hataa hadii hadda meel aan imaano dadka leenay galaan waa aragtay leenka kama hormarno oo leenkii maxay ku tusaysaa marka taas Soomaalida haday helaan dad cadaalad u ah oo dad muslimiin waaye inay hoggaan haday helaan ay dad hoggaan ka raacayo ay yihiin okay marka waxa iri adeeg maxaa loo marka lagu kala adkaado waxa oo jeedaa andahno Soomaaliya waxa mas'uulka dawladda federaalka 2013kii 2012 doorashadii markii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay madaxweynaha xilka ay ka baxnay ku meel gaarkii baa adduunka dawladda soo aqoonsaday dawladda samaanta wadanka mas'uulka ah laakiin 30 sano wadanka burbursanaa waxaa jira kala daadsanaan okay koonfurta iyo bartamaha amisom joogto magaalooyinka weyn Kismaayo Baydhabo Muqdisho Jowhar Beledweyne ciidamo kala duwan amisom joogto kala adkaansho marka waxa uu la jeedaa dawladda federaalka ah oo ayada ummadda Soomaaliyeed ayadii baarlamaanka sharci dejinta ma garanaysaa madaxweynaha dil Soomaaliya dawladda joogto adduunka aqoonsan yahay inay ku adkaato horta inay amisomta wadanka ka baxdo amisomta bay wadanka ka baxayso waa markaas maxaa la jeedaa laga adkaaday mucaaradka hubeysan yaa waay al-shabaab iyo wixii aan dawladda ahayn oo laakiin hubeysan marka taas ay dhacdo oo amisomta ay baxdo wadanka Soomaaliya maxaa ka jiro dawlad rasmi ah oo la aqoonsiyo adduunka markaas maxaa imanaya marka sharciga loo soo laabto dastuurka la dhameystiro dastuurka markii la dhameystiro maxkamad sare la hagaajiyo Puntland iyo dawladda federaalka waxay ku heshiin lahayn Soomaaliya baarlamaanka la Kenya kadib maxkamad sare la Kenya maxkamad sare dhado waxa lagu kala baxaya taas maxaa dhacaysa marka nidaamka inuu shaqeeyo oo maamul ma hadda maartay koonfur galbeed Ethiopiana joog Ethiopianka qofka la socdaan baa awood leh magaranaysa Puntland waa artay Imaaraat iyo waxay hoos ku wataan marka hadii uu system imaado waa la hadani oo kale example ah soo qaata Puntland maadaama ay tahay maamul aan ka go'in sida Puntland oo kale sida Soomaaliya oo kale waan go'ona dhahe laakiin maamul jira ay tahay هذا الدني وحصل نقضي مدحوينها بنتلان لو جار واحد مشرح مدحوينها دولة فدرالك لكن بنتلان هيك اسمين مدحوينها بنتلان دولة فدرالك إنه دلال كل جرو because of trust متجرو trust وحي من كرا لكن سياسيين بنتلان ما دام موجود وين أيهين إني آمنان the more system كأود له أو فدرالك وشقيه أو وضع فدرال والنقطة أو devolution لسميه أو دولة دخوسة dadka isbitaalada iyo waxan yar yar meel walba dadka ay dawladda helaan baasaboor loo soo doonay xamar u jirin ID loo soo doonay xamar u jirin dawladaha u qafiifo oo waxa dawladda la daadihiyo markaas maxaa hagaagay dawladda federaalka inay awood yeelato dawladda federaalka awood yeelato is a win-win for every Somali marka ani Puntland oo kale waxa kula talin lahaa inay encourage gareeyaan ay tanaasul badan sameeyaan because when you getting power when you get power you have to give power to power in a gift magacaada tanaasul badan la sameeyo hadii Puntland tanaasul badan sameeyo oo gobolada kala maamul u noqoto role model inkaas waxa iman karo in ay Puntland tanaasul ka sameeysay nidaamka dhexe ee Soomaaliya uu adkaado si hadhow ninka Puntland ka soo shaqeeyay ku madaxweynaha federaalka noqdo asagii Puntland ay wada shaqeyn karaan then overall military maanta marabno maanta military dawlad military dalka qabsatay ma dhahay aniga laakiin in sharci uu shaqeeyo bini aadanka ilaa iyo ma garanaysaa dadkii dawlad markay bilaabatay waxaa jirtay wax la dhaho bini aadanka hadduu sharci jirin xoolaha ma dhamaan because they just like act the way they want like the system jiro oh there's accountability there's enforcement wixii dhan marka waa inay dawladda federaalka horta ayadoo maamul goboleedyada kaashanayso amisomta kaashanayso ciidamada dawladda federaalka kaashanayso 10 sano ka hor maanta ka dawlad fiicanay in ay ku dadaasho sida looga adkaan lahaa al-shabaab amisomta u bixi lahayd dadka Soomaaliyeed oo dad nabad jecel oo shacab wanaagsan ah nidaamka dawladnimada loo bari lahaa ayadoo amisom iyo al-shabaab ma jirin ma maadsantiin